Master Tanic Origin 911 gabadhii waxaan u baahanahay inaan dalbado visa ciwaanka gurigeygana waa la qariyay Master Tanic waxaad soo wacday 911 saad dalbato visa assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabay waa tahay daawadayaal dhacdo xiiso badan ayaa maanta idin soo gudbinaynaa dhacdo maxay ku saabsan tahay waa gabadh iyadoo iska dhigaysa qof visa dalbanaya ay booliska ku wargelisay dibkii ka haystay guriga gudihiisa haweeney ku jirtay qalalaasa dhinaca qoyska ay u suurto gashay inay wacdo lambarka degdega ah ee gurmadka booliska Mareykanka 911 mana uusan garanin qofka dhibaatada ku hayay maadaama ay iska dhigaysay inay dalbanayso raashinka loo yaqaan biisada saraakiisha booliska ee magaalada Origin oo ka tirsan gobolka Ohio ayaa amaanay sida dhaqsada badan ee haweeneydaas ku keentay fikradda cajiibka ee horseeday in la soo xidho eedeysanaha loo haysto inuu ku dhibaateynayo guriga gabadhan oo magaceeda la shaacinin ayaa warbaahinta maxalliga u sheegtay in hooyada la weeraray waqtigaas xeelada noocan ah ee lagu wacyo booliska ayaa muddo sanad ah la iskula dhexmaray internetka dhexdiisa laakiin kiiskan oo dhif ah ayaa kamid ah kuwa la xaqiijiyay in si dhab yar loogu adeegsaday fikradaas hase yeeshee taliska booliska ayaa hore uga digay inuusan jirin wax damaanad qaad ah oo la xidhiidha in xeeladan ay sida loogu talagalay u shaqayn karto ciidamada booliska ee aan ku sugnayn saldhigyada ayaanu tababarnay inay durba kala gartaan qofka si sax biisa u dalbanaya iyo qof caawimaad u baahan askariga gurmadka u sameeyay haweeneydaas oo lagu magacaabo Tim Tanic ayaa warbaahinta maxalliga ah ee ABC u sheegay in markii hore uu maleynayay inay soo wacdo lambar khaldan markay ku adkaysatay inay la hadlayso qoladii ay ujeedadoodu ahayd ayuu gartay xaaladda dhabta ah maadaama hore uu baraha bulshada ee internetka ugu arkay arrimo noocaas oo kale ah waxaad ku arkaysaa Facebook laakiin ma aha arrin weligeed qof loo tababaray ayuu yidhi Master Tim Tanic isagoo hadalkiisa sii wata ayuuna intaas ku daray askarta kale ee aan la hadlay waxay ii sheegeen inaysan wax ka qaban lahayn arrintan oo kale maxay tidhi gabadha wacday lambarka booliska waa kan wada sheekaysigooda oo qoraal ah Master Tanic Origin 911 gabadhii waxaan u baahanahay inaan dalbado visa ciwaanka gurigeygana waa la qariyay Master Tanic waxaad soo wacday 911 saad dalbato visa gabadhii haa sax guriga aan deganahay waa la qariyay Master Tanic lambar khaldan soo wacday haddaad rabto visa gabadha maya adiga ayaan fahmayn Master Tanic waan ku fahmayba hadda wicitaankaas qaybihiisa dambe haweeneyda ayaa heshay qaab xeelad ay uga jawaabtay su'aalaha Master Tanic oo jawaabahooda ay ahaayeen haa ama maya kuwaasoo ku saabsanaa inta ay leegtahay khatarta ay ku jireen iyada iyo hooyadeed iyo weliba noocay tahay caawimaad ay u baahnaayeen Master Tanic qof kale weliba wuxuu joogaa meesha gabadhii haa waxaan rabaa biisa weyn Master Tanic hagaag ka waran daawo ma u baahan tahay daweyn gabadhii maya barbarooni ku soo dar wada sheekaysigaan soo akhrinay daawade waa wicitaankii khadka telefoon ku dhex maray Master Tanic iyo gabadhii xagee ka timid fikradda biisada ma cadda halka ay asal ahaan ka timid fikraddaas laakiin dhacdo si aad ugu eeg tan ayaa xeeladaas loogu adeegsaday olole ay sanadkii 2010 sameeysay hay'ad hoysiisa haweenka oo ku taala dalka Norway 4 sano kadib bishii May ee sanadkii 2014 qof ka qayb galay dood dhinaca internetka ah oo ka socotay website lagu magacaabo Reddit oo sheeganayay inuu ka mid yahay askarta ka howlgashay adeega 911 ayaa sheegay inuu soo wacay qof dhibana ku ahaa gurigiisa isagoo iska dhigay inuu biisa dalbanayo daawada dhacdada xiisaha leh ee gabadha isku badbaadisay hooyadeeda nafteeda maxaad ku tilmaamahay dhacdada noocan oo kala ah video walaal saar siina shirkaro. Assalaamu calaykum.